shacabka magaalada beled xaawo ayaa maanta dareenkooda waxa ay ka dhiidiyeen in aysan marnaba aysan Itoobiya aysan imaan karin magaalada beled xaawo. Haddaba inta badan dadkii iskugu soo baxay maanta magaalada beled xaawo ayaa waxa ay ka sinaayeen hal eray in ay Itoobiya aysan imaan karin magaalada beled xaawo, hadday imaadana ay kala kulmi karto cawaaqib xun. Haddaba dhinaca kale taliyaha xasilinta ee Jubbaland ee maalmo ka hor ay dowladda federaalk Soomaaliya usoo magacaawday Cabdirashiid Janan ayaa asagana waxa uu hawada u mariyey in ay Kenya iyo sidoo kale Itoobiya ay marnaba kala gorgortami karin dhul Soomaali ay leedahay. Haddaba warbixintaas ayaan ku dul istaagi doonaa ee saaxiibayaal marka hore noo qurxiya muuqaalka oo la inoo saara. Waa hagaag. Waxaan ogeyn in ay Itoobiya sargaal ka socdo maalmo ka hor uu soo gaaray magaalada Doolow, taasi oo inta badan odayaasha magaalada Doolow uu kala hadlay in ay beled xaawo ay u socdaan ciidamada ku sugan halkaas ay muddo 3 bil ay u qabteen in ay uga baxaan ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ee ku sugan Xarayugay. Haddaba inta badan shacabka magaalada beled xaawo ayaa taasi maanta waxay ka soo horjeesteen go'aankii ay Itoobiya ay ku cadaysatay in ay beled xaawo ay keeni doonto ciidamo fariisinna ay ka dhigan doonto. Balse mid ogow, beled xaawo waa meesha keliya oo Itoobiyaan ay joogeen. Waxaan ognahay 7 degmo ee gobolka Gedo in ay Itoobiya markii laga bixiyo beled xaawo in ay fariisimo ay ku leeyihiin 6 degmo ee soo hareysa ee gobolka Gedo. Balse magaalada beled xaawo ayaa waxa ay tahay halka keliya aysan joogin ciidamo Itoobiyaan iyo sidoo kale ciidamo Kenyaan ah. Haddaba shacabka magaalada beled xaawo ayaa waxa ay maanta dareenkooda ay ku soo bandhigeen in ay marnaba Itoobiyaan aysan imaan karin ama cagaa aysan soo dhigi karin beled xaawo. Dhinaca kale taliyaha xasilinta ee Jubbaland ee u magacaabay dowladda federaalk Soomaaliya Cabdirashiid Janan ayaa maanta asagana waxa uu wacd uu ku maray in aysan Kenya iyo sidoo kale Itoobiya aysan marnaba kala gorgortami karin dhul ay Soomaali ay leedahay. Dhinaca kale Jubbaland ayaa waxa ay soo daabulaysaa ciidamo xoog leh, taasi oo inta badan Jubbaland ay isku diyaarinaysa in ay mar kale ay soo gasho gacanta beled xaawo. Haddaba waxaa ognahay in ay gacan ay ka siinaysa in ay beled xaawo weerarto ciidamo Itoobiyaan ah, walow aysan meesha ka marneen Kenyan in ay lug ay ku leedahay, maadaama meesha ciidanka la keenayo ay tahay dhul ay leedahay Kenya. Haddaba suurtagal ma noqon kartaa in dagaal mar kale uu ka dhaco magaalada beled xaawo, taasi oo shacabkii iyo ciidankii dowladda federaalk Soomaaliya oo isgarabsanayo, halka dhinaca kale ciidanka Jubbaland iyo Itoobiyaan ah ay weerar ku soo yihiin magaalada beled xaawo. Dhinaca kale dowladda federaalk Soomaaliya halkii laga rabay in ay ciidamada Xarayugay ku sugan in ay ku soo xoojiso ciidamo hor leh ayaa xalay waxaa ka soo baxday warqad wiifta ah oo inta badan ay ku cambaareynayso ama ay ku eedeynayso Jubbaland in ay ka wado gobolka Qalalaaso. Waxaa inta badan warqadii xalay ay soo saartay dowladda ay shacabka Soomaaliyeed ay ku tilmaameen mid dowladda shaqadii looga baahnaa aysan qabanaynin. Haddaba adiga muuqaalka daawanaysid sidee u aragtaa warqadii xalay ay soo saartay dowladda federaalk Soomaaliya halkaas oo ku ekeed keliya cambaareen? Dhinaca kale odayaasha magaalada beled xaawo ee guurtiga iyo dhalinta iyo sidoo kale ururka haweenka ayaa maanta waxa ay yeesheen shir ay uga hadlayaan xaaladda magaalada beled xaawo ku soo wajahan oo ah in ay ciidamo Itoobiyaan ay ku soo socdaan, taasi oo hoos ay ka xariiqdeen in marnaba aysan Itoobiyaan aysan ka ogolaanin in ay soo gaarto magaalada beled xaawo. Sidoo kale waxaa maanta magaalada beled xaawo lagu arkayay diyaaradaha helikabtarka ay leedahay Itoobiya oo dul heebaabaya. Sidoo kale diyaaradahaas ayaa maanta waxa ay dul heebeen inta badan ama ay sahmin ugu jireen halka ay ciidanka ay ku sugan yihiin ee Xarayugay, taasi oo markii dambe cashir halkaas lagu dhigay oo ay kasoo kala carareen. Isku soo duuduube inta badan maanta magaalada beled xaawo ayaa shacabkooda waxay ahaayeen mid ay ka taagan yihiin hal qadiyad oo ah in aysan marnaba Itoobiyaan aysan soo cagriganeyn magaalada beled xaawo. Haddaba xaalka magaalada beled xaawo ayaa waxa uu yahay in mar uun labada ciidan ee sida Jubbaland iyo sidoo kale ciidanka dowladda dhinacna ay la safan yihiin Itoobiyaan Jubbaland in mar uun uu ka dhici doono dagaal hor leh, taasi oo inta badan magaalada beled xaawo ay wajihi doonto maalmaha soo socdo. Haddaba wixii ka soo kordhaa xaaladda gobolka Gedo gaar ahaan beled xaawo iyo Doolow tabinteena dambe iyo sidoo kale warbixinadeena dambe ayaa ku daawan doontaa insha Allah.